marka sidaasaa lagu tacriifiyey zina waxaasaa la yidhaha shuruuddaas wixii oofsada ayaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa zina uu u yaqaanaa mar walbaba qofka zaaniga ah waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira uu ku ciqaabo waxaa ka mid a cumri degdega ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a in isaguna kamaa tadiinu tudaan siduu isaguna u zinaystay in ilaahay ku ciqaabayo ahalkiisa mid kaloo shaydaan in ilaahay isagana uu qoorta u geliyo oo ahalkiisa laga zinaysto asagana hadduu haweeney la qabo uu ka zinaysto isagana xaaskiisa in laga zinaysanayo gabar hadduu ka zinaysto la dhalay isagana gabadhiisii in laga zinaysanayo kamaa tadiinu tudaan sidaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmo cuquubaadka yacni lagu ciqaabayo adduunyada ayay ka mid tahay walidaalika waxau yihi nin shaacira ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ina الzinaa daynun wuxuu yihi zinadu daynay kugu tahay fain aqradtahu haddaad qof amaahiso kaana alwafaau min ahli beytika faclami waxaad ogaataa aalu beytkaaga in deynka laga jari doono ogow laasim waxaa waaye qofka hadduuba zaani yahay isagana adduunyada waxyaalaha uu ku ciqaabayo waxaa ka mid ah in asagana ahalkiisii iyo qoyskiisii sidaasoo kale loo fadaraynayo gabdhaha kale siduu u fadareeyey oo cirdigoodii iyo uu ugu tuntay oo akhlaaqdoodii iyo mustaqbalkoodii uu u baabi'iyey sidaasoo kale asagana gabdhihiisa in loo gelayo ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ahlu beytkaaga ayaa laga jaray waxaa imaamu اlbazaar kitaabkiisa musnadka uu ku wariyey waina furuuja الzunaati latu'dii ahla الnaari binatni riixihaa inuu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waina furuuja الzunaati kuwa zinaysta cawradooda latu'dii ahla الnaar binatni riixihaa wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam ahlu naarkaa ku dhibtoonaya qarmuunka farjigooda malaxda iyo dhiigga ka qulqulaya dadkii kaleoo dembiyada kala galay oon zinada gelin oo ahlu naarka ahaa sankay ka qabsadaan oo waxay leeyihiin rabbiyow waxani maxay tahay soo karaya waxa naarta nagu dhibay oo cuquubadii iyo cadaabkiina haystaba nooga darnaaday muxuu yahay markaasa waxaa laleeyahay waa furuuju zunaat waa dadkii zinaystay cawradoodii malaxda iyo dheecaanka ka shubmaya way qarmuunka ad arkaysaa marka waa cuquubada khaaska ah ee ilaahay subxaanahu watacaala aakhirana uu ku ciqaabayo adduunyadana in cumri deg deg lagu rido amraad iyo xanuunno aan la garanayn ayaa ilaahay ku sallidaa subxaanahu watacaala xanuunkan hadda adduunku uu daawo ula yahay la yidhaaho addaacuun almucaasir daacuunka casriga oo loo yaqaano aidiska loo yaqaano inta badan boqolkiiba 95 wuxuu ka dhashaa zinaduu ka dhashaa way dhici kartaa asbaab kale inuu qofku u qaado oo maalan qof yacni xanuunkan qabay oo viruskan qabay in maaragtaa maqas uu ku jartayoo yacni dhididkiisa ama dhiiggiisa uu maqaska taabtay in asagana loogu jaro way dhici kartaa haddii ilaahay u qadaro laakiin taasina waxay ku xihan tahay maqaadiir ilaahay in ilaahay u qadaray subxaanahu watacaala way dhici kartaa haweeneydii yacni markay umulayso maqas lagu jaray haweeney kale oo xanuunkan aidiska qabta in iyadoo beri ah oon zinaysan oo waxyaalaha aan shaqo ku lahayn in si khalada maqaskan iyadana loogu jaro dhiiggii iyo dheecaankii isagoon laga gubin oo jeermiskii aan laga dilin in iyadana lagu jaro sidaa ay ku qaado waa suurtagal waxyaalo naadira taasoo kale aidisku uu ku dhici kara laakiin boqolkiiba 95 wuxuu ku dhacaa dadka xaaraamta yacni galmada xaaraanka sameeya oo cumrigooda ilaahay ku dedejinayo oo ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira noloshoodii uu ku ihaanaynayo adduunyada soomaalida hadda dembiyada ku yar ayay ka mid ahayd zinadu xilligii hore soomaalidu waa isdhici jirtay yacni waa islayn jirtay dhiigga waa daadin jirtay laakiin jariimadan iyo daahiradan zinadu way ku yaraan jirtay aaday ugu yaraan jirtay laakiin wakhtiyadan dambe markii uu soo kordheen filimadan iyo facebooka iyo waxyaalaha internetka dhallinyaradu ay isweydaarsanayaan oo haweenkii iyo raggii iyo ficil wixii samaynayaba dhallinyaradii ay fiirsanayaan markay ku ta'asureen oo ay ku saamoobeen ficilkii oo kale inay samaynayaan ayaa shaydaankii u qurxiyey taasi marka waxaa ka dhalatay waddankii xanuunkan aidiska inuu nisbaba hadda ku yeesho
percentage inuu ku yeesho oo la yidhaha boqolkiiba Soomaaliya imisa viruskaas ka xambaarsan saasaa hadda percentage u yeeshay yani nisb u yeeshay awal lagama aqoon jirinba nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiska ibnu maajah uu warinayo wuxuu ku yidhi lam tadhar ilfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim الطaacuun wاlأwjaacu alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi haddii qola faaxishada iyo zinadu ay ka daahirto ilaahay wuxuu ku imtixaanaa xanuuno awowayaashood aysan garanayn awowayaashii hore xanuuno aan ku dhicin jirin oo weligeed awowayaashood aysan maqlin ayaa ilaahay ku ibtileeya subxaanahu wa tacaala waxaad arkay hadda maaragtaa yani in dadkii la xanaanaynayo oo soomaalidii qaybo ka mida xanuunkan intuu ku faafay galmadan xaaraamta boqolkiiba 90 wuxuu ku yimaadaa zinadana uu ku yimaadaa ilaahayna wuxuu ku ibtileeyaa subxaanahu wa tacaala kuwa xaaraanta iyo intihaakul xurumaad samaynaya ayaa lagu ibtileeya waxaa kaloo qayb ka mida waxyaalaha zinada faafinaya waxyaalahan dhallinyaradu ay isku tuurayaan waa xaaraan dhallinyaradu waxyaalaha ay isku tuurayaan oo facebooka la isugu tuurayo ama yani shabakaadka cankabuutiya waxyaalahan loo yaqaano la isugu tuurayo waa qayb zinada ka mida haweeney yani maalan yani wixii samaynaysa ama qaawan haddii qof aada u tuurtid dembigii iyo fidnadii qofkan uu ku fidnoobo adigaa laguu qori isagana waa loo qori goonidiisa ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu leeyahay jala jalaaluhu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishaةu fi اladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira fi اdunya wاlaakhira yuxibuunu ilaahay ka cabiro kuwa jecel faaxishada iyo zinadu inay ku faafto yani iyagii ma aysan zinaysan laakiin way jecel yihiin zinadii inay mujtamaca ku faafto ayay jecel yihiin ina aladiina yuxibuuna أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الدنيا إلهي وكو عقاب آخرنا إلهي وكو عقاب marka haddaad aragtid haweeney qaawan ama nin qaawan aad aragtid waxyaalaha faaxishada sameynaya layg ha saarin haddaad layg saarto zinadii aad faafis ha sheer garayn haddaad sheer garayso ama layg aad saarto zinadii aad faafis waxaadna soo geli aayadda ilaahay uu leeyahay jala jalaaluhu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha kuwa jecel faaxishadu inay faafto leanna waad faafinay imise qof aad u tuuri faaxishadii aad faafinayso marka waxaa weeye bahashani waa cuquubo ilaahay subxaanahu wa tacaala qabla alaakhira ilaahay uu ka daahirinayo mujtamacii ay ku dhex faafto xaddu zaani almuxsani haadaa midkani xaddu zaani almuxsan qiso yara waxaan rabay runtii kitaabkan dhexdiisa kitaabkan intii aan waday kitaabkan hadda inoo socda intaan waday haweeney markaan casharka ka baxay ayaa galab halkaa ii istaagtay haweeneydii ninaa la socda yani aniga weligay ma isdhehayn soomaalida waxaasoo kalea ka dhex dhacay ninaa la socda haweeneydii ninkan marka waxay leedahay bal sheekhow inuu iga furan yahay iyo in kale bal inoo fiiri sharciga inuu iga furan yahay in kale sharciga inoo fiiri muxuu sameeyaan waxay tihi ninkan markii hore wuxuu fiirsan jiray filimada iyo haweenka iyo ragga qaaqaawan oo faaxishada iyo zinada samaynaya waa ninkaygii intaasaan uga digay waxaan saameynay kugu yeelanaya akhlaaqdaaday bedelaya diintaaday dhaawacaya sharafkaagay dhaawacaya waxaan iska jooji waa iga diiday markii dambe waxay tihi ninkii waa xanuunsaday markuu xanuunsaday gabar isagu uu dhalay ayaan irihi tiri aabbo u qube aabbo u qube waa xanuunsan yahay markii gabadhii aabbo u qube aan iri gabadhii wax ka dayi tiri walciyaadu billaah waa aabbe casharka markaan ka baxay gabadha halkaa ii istaagtay gabadhii wax ka dayi tiri gabadhii ma aysan sheeginay tiri waa iska aamustay waa ka cabsatay mar kale mar afraad ilaa mar shanaad oo sidii oo kale uu ku sameeyey marka bal inaan ka furanahay iyo in kale kan rajo igama jirtee bal sharciga ii fiiriyay tiri marka waxyaalaha cajaa'ibta leh qaraa'ibta ah weligay isma lahayn cumrigii Soomaaliya iyo waxaasoo kale ay ka dhacay
waa aabbe gabadhiisii wax ka dayay qofaa ii sheegtana ma dhahayo iyagii oo isdacweynaya aniga ii yimid toos igu yimid marka waxaa weeye waxyaalahan yacni qalabkan shabakaatul cankabutiya iyo facebooka iyo waxyaalahan la faafinayo akhlaaqdii mujtamaca way dileen mujtamaca akhlaaqdiisii way dileen way baabi'iyeen